magaalada Baydhabo markii la ka tariyahay markii Abdulaziz Roge madaxweyne Abdulaziz lafta galeen magaaladan ka amni badan qofkii qof dil wala dilay istaraatiijiga amniga intuu jidka keen surma si sahlan oo mumkin ku dhacaan hatta laabka hotelku soo jeerihimin hor qurudan yar mobile ku furday mobilada shacabkii ma artay si sahlan ku furday askar ma artay ما هاتري كهذا قرية شعب كويلين ما بلدان فرضها تاسو برشدي براكين عبسمك أبو رسو والله كل يولي والحقيقة أرنتاس إنه كل ديجني مجرى إنك سولس للي إنه ديجني لكن لله هاي لسنا تابيو كل هذين ما أرجع نتابع لنجيك ما بلغوا بعض بدل القاضي أرجع واضح أرجدي فت بردها كل أنت فايل فرس ذا كذا واضح ورسقة بقول الولدونا قدوميك هوري دنا يرد قبل كاباي عبد الفتاح باستي قفدنا يرى والبردي deegaanka way badan roogay muddooyinkii dambe ku maqanaay oo hasreedan ka nagay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ada fataha taqasud inuu boo security study waa aftaa haka dhaw sharafaniga ta maaratay in my TV ka dhawaan dhaw runtii ma xasan tafasalayo idan ka dhaw TV ga my TV ankorantii way baneen ku warama sida anaga Baydhabo madiya ka nagay isbedelada ku dhii iyo sida guud ahaan amniga koonfur galbeed soo yimay san aragayt والله رنتي بيدو ومدة 6 سنة iyo bilooyinka kuma qanaay waa may ku tabayo maamulka la ku jir runtii magaaladana xilligaas ana gudoomiye dhalinyaro ku hay xilligan ku tabayna sabab markaas aan gaar hayn yaan ku tabay wal barashada dalka banaanshiyan bahi ana alxamdulillah madan dibaan ka nagadi magaalada Baydhabo geeka ishalay geeka faylata sababtay shalay oo markaas ogaanka dhalinyarta hayni fursado markaas dhalinyarta runtii ma jaran ano dhin badan ku fiiriyow dhowr jeer iska daynayna activity qabana oo barnaamij sameeyna adina marqaati ku hayti si iska yaan sameeyani taasoo lan sababay korayni meel aan ku jarna barnaamijyadii dhalinyarta la hormariyay markii la waay dartii magaaladan ama gobolkan ama guud ahaan dhalinyarta koonfur galbeed culays eedan weyn haysteen oo dhanka shaqooyinka oo fursad laana ka dhiiday marka geeka isbedel ku dhiyeen oo siyaasadeed taas oo ka qato maasa nidaam la iska haysadii awdii marka alxamdulillah geeka Baydhabo neecawaan muuqata waana may rajeeyna dawladnimada la hadhasa doona inay nagada doonto to eed marka dadka iyo dhalinyarta baan ku faa'iideysan doona marka geeka Baydhabo nidaam ku jar okay nidaam ahaan dhiniga takhasuska security ka doon ku firan amni ahaan isbedelada amniga Baydhabo iyo xalisaha amniga ku dhalada kor madii arday Baydhabo soo ogna madaxweyne Abdulaziz Madar ku baray hukuumaddiisa bari may ku burin waa habad qor aadan ku buray bulsho badan magaalada Baydhabo ku barakeen ma isadaas absir ku qabo kor amni ahaan madalan fiiri wallahi meel arama ku dhigan waa arrimaha amniga marka lagu fiiri wallahi wal dhibaatay geeka kooy korto male sababtoo shakhsiyaad iyo taabiyayni company iyo gaar iyo leen security ya deegaankan haysan madad dawladnimo ku shaqeeyay mahayna security nafsiis dhamay mas'uul ku ah dawlad marka madad saayid badan lagu fiiri geeka deegaanada amnisho idan sugnyi sababtoo dad yaro markaas group hayan amiyo ku fadayni amniga iyo resource deegaanka biyo qaadan dartiye deegaanka ku bahay magig deegaanka amni ciidan faylay wal khatarina ma jirto talooyin amni ada beerila ka beerila dadka Baydhabo baahan daslata wallahi talooyin baahanta dhanka amniga marka lagu fiiriyo geeka horta ma jar community policing wala oo xiriirka bulshada oo geeka amal lahayn la amniga yarontii wali jana ma jaran hatana ma jarsana amisna sababtoo dadka deegaanka iyo isku hayn dad nabdood oo may nabad ku shaqeeyo hayn marka may la faday in deegaanka la sameeyo xiriirka laamaha amniga iyo bulshada runtii in ilan xooji ها تنكله markii la ku fiiriyo deegaan si dhamdad shay yaa ku shaqeeyaan amni shay marka deegaanada koonfur galbeed especially magaalada Baydhabo caasimada ku meel gaarka runtii meel fadhiina xiriirka bulshada iyo laamaha amniga runtii iyo nagadan haano eediyad anaska dhaw tan kale may muhiim ah in la sameeyay call center ama xarun markaas markii dadka deegaanka iyo dareeman dhibaato si aan ka gudbiyaan hay'adoogi amniga si cabashooyinsho iyo aan ka gudbiyaan marka may muhiim ah in may buwa la ka kordhi xafiisadaas
runtii adeegayaan dadka deegaanka. magaalada baydhabo markii la katariyay markii Cabdicasiis Rooge madaxweyne Cabdicasiis lafta galeen magaaladan ka amni badan qof dil wala dilay istaraatiijiga amniga intuu jidka keen surma si sahlan oo mumkin ku dhacaan hatta laabka hotelku soo jeerimin hor qoran yar mobile ku furday mobilada shacabkii ma artay si sahlan ku furday askar ma artay ma hadri ka hadlaas qoriya shacabka weeyeen mobilada furdahay taasoo bulshadii barakeyn cabsima ka abuuraso wallaahi kullay wali wal xaqiiqe arintaas ono ku dheegni ma jiraan ka soo leeyno dheegni laakiin la hayay sana taabiyo kullay adina ma aragna taabilan geek mobile ku qaaday badan ku qaaday arag waade waa aragdi fad bardaha okay wali jeedii jirtay marka wala noocaasina kullay wal isku gaaban waan insha Allah marajeen in lama amniga iyo haf jar doona taakala may ku dhawaajay xilliga hor iyo hatta magaaladan koonfur galbeed Baydhabo leeyma may dareemasa in la ka koobi barnaamij walba Baydhabo iyo area haddii aan ma aragne kinga dar Baydhabo may roogay ciidamo ciidan tira badan oo iska jari police nabad sugid daraawiish iyo ciidankii xooga marka dareemo korta magaalada hatta kala lahaaba dadka kiisha nabdoon hatta aragday meelgay khawaarij wal ka hadlayo soo Baydhabo gudaashe jirte ma jirte marka wala yaro hatta oo isbedel kan sheenay oo de siyaasadeed runtii waa lagu gudub karo marka shacabkana gooyo meel faday inuu ku shaqeeyaan nabadtiitiyo ma lagu shaqeeyo ma amniga mar waliba may ku shaqeeyaan siyo aan ku horseeda fadaan qataro ama si ugu daba seeda fadaan qataro ay dhig marka saadartii alxamdulillah keekna wada jirta fursadaha dhalinyarada ku qaybgalka amniga doorsi ku qaado korta arimaha nabadeynta isdhaxgalka bulshada wallaahi su'aal aad muhiim ah dadka reer koonfur galbeed ama dadka maay ka hadalo badansho eed mandanayaan inuu markaas iyo kabiran dhanka amniga waa mushide markii uu fafiirina masterna ama obsadartiya leen ku hiraya laakiin fursadeedan bileeran ku banaa amniga may la karo waa fil eedan bileeran oo hoos kooyayaan dhowr iyo ma aragne tuman isiid ama tumaytada fil oo amniga hoos kooyo jar marka hadii qofka amni barada ama islaama amniga kabiira fursado is marka banaanka roogi ama hay'ado kale isku kabiira fadi ku fayla helay marka runta lagu hadal oo si toos ah wajaha kullay dareemo korta dawladda xafiisadii dhanka amniga madal ku fiiri waa meelanka badan geeka lanka baahan dhalinyarada ama xoognaga aqlanaga aqoonnaga toy way aragnimada toy marka may muhiim ah inuu kabiiraan fursado ku banaan meelaha ku helaamay kumadaha in nafsastiita iyo ka hormariyaan dadka kiishan hormariyaan marka inuu kabiiraan ciidamay waa fursad neta waana ma kala taleefaday inuu kabiiraan laamaha amniga ama booliis nagado ama nabad sugnaga toy ama in sheegada nagado asluub ama nagado ciidanka xooga saasoo kale fursad helaas may kumadaha ay organization ama international ama local ma baahan xafiis amni hada tusaale ahaan hay'adaha qaadana oo magaalada degan hay'adan la yaraado kala mid kumid ah hay'adaha isku leh mid kumid ah hay'adaha kala kii ma ilata security officer lata ma ilata ciidan markaas ilaaliyo hay'adaas marka hadii yooga la waay hay'ad ma haday kor deegaanka marka si deegaanka iyo dadkan xasilnooda may muhiim ah inay maybuwa dhalinyartii ka biiraan ama ku qayb galaan fursad amniga ku banaaw aftaha soo ku warqabna fursad center badan muhiim ah jira hogaamiyaha hadda Baydhabo hadii qof iyo codka hadii laga doorado Baydhabo soo ku warqabna xisbi ahzaabtii doorashooyinka ma artay oo la jawaadan hadii hogaamiyaha la doorado dhalinyarada fursad sii waay medias wallaahi su'aal aad muhiim ah horta dad shay dhase especially dhalinyarta dhasaas waana dumiyaas hadii geeka mudaharaada ama qalalaasa dhalinyartan sameeyay sila ka xakamay adagda marka qof inay wadooyinka hor wada ku duwan geeka la wajahana muhiim dadka reer koonfur galbeed dhalinyarta reer koonfur galbeed geeka may fahansiinina meelo wal ku jiraan shalay meelo wal ku jiraan ogaanay la ergor dad yar fursado may buu haysadeen marka may muhiim ah inay fursado ka badan la sii dhalinyarta oo dhan waliba marka la baahanyi aqoontiyo iyo ay aragnimada iyo xoog shilan ku faa'iiday marka ma aaminsana hatta dadku wala doorado doorasho qofka ka dhalinyarada badan sax aad u ama kori ama gabarnagdan marka hadii aad ahaanad barajana si white adduunyada meel badan ku dhiyaas dhalinyaro may waa in sheegada
mudaharaadayo sameeyeen dartiye inka damboyda Kenya oo kale salka xalli ogayti marka in dadka deegaanka jaanistan badan la sii yamay nagadaas in dad dhalinyarta ku shaqeeyaan madnamadii wada jarka deegaansho ka dambeyti way aragnimada dhinaca amniga way aragnimada dawladnimada aad ka dhex jartay may tale tusaale dhalinyarada injadi fadi xukuumadda cusub iyo dawladda taroodana ma aragtay injadi fadi runtii ma injeediyay dhalinyarta ku bilaabay dhalinyaro iska duubanaada deegaanka hata geeka dhalinyaro iskiina ma ku jirto runta ku hadlaan shal deedsanin unity aan baahanyin haddii madoodan oo in sheega dad an hadalo markaas iyo afka kisho ka hadalo iyo la hadan walbadan amil baa badan la gowdhabo kor fursaday markaas kooyana si jolan ku faa'iideey may taabiyay baydaw hata ama guud ahaan koonfur galbeed dhalinyaro shaqeeyahayd laakiin dad kooban si deegaanka laga xamadoona dadka deegaanka dhalinyarada deegaanka ma shaqeeyaan la eray marka haddii isku hiramano xaafada ku bilaaw degmana in sheegada gobol dheh tuuli ilaa degmo guud ahaan walaa ku koobanta koonfur galbeed isku hiramaan runtii jaanisida iidan fay lahadayaan markaas ku dubnaan iyo maybu in sheegada aragta dheer in walka cabirtaan runtii rajeeye waana deegaanka dadka siin baahan tan kale dhanka siyaasadda iyo dowladnimada runtii siyaasad si dhanba xiriir bulsho marka siyaasadda lagu sheekayo waa isdhexgalo waa ilaalin la ilaaliyo dad iyo deegaan qofka madalka la siyaasiyo meel la faday kaliya isku shaqeeyo danta guud siyaasi hebel kursi ka fadhiya man ka fadhiyana kursi shakhsiyadiis qofka markii xilka qabada may muhiim ah in isku shaqeeyo wala dadka deegaanka doordeen marka hogaamiyaha kooydoon runtii may talaasiyay in wala lahan koomna la bileeri si dadkii deegaanka fursad aan wada deerta laakiin haddii la kooba wala hata kor ku dhiibay dhaw marqaati la kuyi sheekadii in sheegada maamulka hata bahay ma jeerin may bafkeena ka dhaw laakiin may fadaynayna may aan dhina taas oo kala 7 sano ogaayay marxaladda la ka jaray 7 sano bardaalna seeda kornahayd madala seeda dhawaatay la kasay marqaati ku hayni abuuri dhatan la mar kornahayd marka in amniga muhiimada ka wada si fursadda dhalinyarta lanku faa'iideeyay marka siyaasadda iyo dowladnimada markaas qaadada koran bulshada xiriirka markaas faylaaday iyada ma santa aftaa oo kumaanana wata qaaliga iyo talooyinka tusaalaga oo dhinaca dhalinyaradii amniga la xiriiri iyo dowladnimada sidii horumarka koonfur galbeed loo wada shaqeeyay kaasoo baaftaha baastay oo hay gudoomiyihii hore dhalinyarada gobolka Bay naan way badan baydhabo kuma qanay reer baydhabo oo walbarasho banaanka ka maqnay arimo amniga oo badan ku ogaana taqasus yeena aftaa waqti qaaliga kumaanana iyada ma